Komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa maanta kulan la qaatay saddexda xisbi qaran ee Kulmiye, UCID iyo Wadani. Kulankani oo saacado kooban qaatay warbaahintuna dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka Somaliland isagoo ugu horreyn bashaaca ka qaaday in komishanka doorashooyinku sida ugu dhaqsiyaha badan ay tallaabo uga soo saari doonaan xadgudub ay sameeyeen labada xisbi qaran ee Kulmiye iyo Wadani iyagoo ka baxay buu yiri heshiis ay wada saxeexeen saddexda xisbi qaran oo ahaa in inta ay socoto qaadashada kaararka codbixintu saddexda xisbi qaran midna aanu samayn karin wax kaambayna ana gudoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka Somaliland hadaladiisii kamid ahaa waxaanu halkan anagoo ka faa'iideysanayna u marinaynaa miidiyaha saddexda xisbi qaran in laba xisbi qaran oo kamida saddexda xisbi qaran ay ku xadgudbeen xeerkii habdhaqanka oo si bareera ay u jabiyeen markay marayeen gobolka Togdheer qodobadii jabiyeen oo kala ah qodobadii aynu ku heshiinay ee xeerka habdhaqanka anshaxa xisbiyada kaar qaybinta qodobadaas oo arkayno in la jabiyo si bareera loo jabiyay oo kala ah qodobka 3aad qodobka 6aad qodobka 7aad firqadiisa 13aad iyo firqadiisa 14aad ba in labada xisbiye ee Kulmiye iyo Wadani si bareera u baalmareen anshaxa ay komishanka la saxeexdeen taana waxaanu ka soo saari doonaa go'aan cad waxaanu ku soo gudbin doonaa labada xisbiba go'aan cad oo adag oo ah jabinta ay mutaysteen khuseeya sidoo kale waxa iyaguna dhankooda ka hadlay mas'uuliyiin ka socotay saddexda xisbi qaran waa Kulmiye, UCID iyo Wadani iyagoo labada xisbi qaran ee Kulmiye iyo Wadani shaaca ka qaaday inay ku kalsoon yihiin go'aan kasto ay soo saaraan guddiga komishanka doorashooyinku halka xisbiga UCID dhankiisana uu ka hambaliyay go'aankaasi ay soo saari doonaan guddiga komishanka doorashooyinka Somaliland waxaana saddexda xisbi qaran hadaladoodii kamid ahaa qolladkana hadii la nooga helo wixii aanu ku heshiinay wax ka duwan diyaar baan u nahay wixii komishanka lagu xukumayo qaadano waxaan jecelahay shuruucda qaranka loo wada hoggaansamo haddii aan naxib xaakimkii Kulmiye wixii halka ka yimidna garowsheega waa ka bixinaynaa waxaanu taageerayaasha iyo madaxda xisbigaba gaarsiin doonaa wakiil kaga nahay inaanu ilaalino sharciga u yaala doorashooyinka qaranka kolba kii duruuftiisu taagan yahay in la ixtiraamaan runtii halka lagu gudbinaynaa wixii naga qabta sharciyan runtii waanu ku dhaqmi doonaa ku hambalyeynaya go'aanka ay komishanku qaateen muxuu ahaayay xeerka berigdooda anshaxan kala saxanay go'aanka hadda ay ka soo saareen iyagana waan ku hambalyeynaynaa go'aankooda inaan sugnaa haddii la lahaa axsaabtana waxaan u guwaabinaa guud ahaanba in wixii aynu kala saxanay ee sharciga ahaa la dhowro Ismaaciil Salaan TV-ga caalamiga Kalsan magaalada Hargeysa.